asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal ku soo dhowaada hubinteena layaabka dunida si aad u hesho muuqaalo ku xiisogeliyo sabscribe saar muuqaalkan like-na saar wixii talo ah qaybta commentiska noogu reeb mahadsanid aan horey u galno maanta waxaan idin haynaa 10 waxyaabood oo cirka ka soo dhacay nambar 10 roobab wata jalaatiin sanadu markay ahayd 1967 Iskoosiya waxaa ku soo da'ay roobab wata wax shabaha jalaatiin waxay ahayd maado kala duwan taasi oo la fahmi waayay wax lagu tilmaamo culimaduna waa ay fahmi waayeen asalkeedu waxa ay ka samaysan tahay nambar 9 roobab kalluunyo iyo raaxyo wada socda oo samada sare ka soo da'ay sanadu markay ahayd 1981 magaalo ku taalo dalka Ingiriiga oo lagu magacaabo Napalia ayaa waxa ka soo da'ay boqolaalo raaxyo ah culimadu wax baadha waxa ay cadeeyeen dabeelo saayta oo socday awgeed inay macquul tahay haraha booskiisa asalka ahayd ee Afrika ay dabeeshu ka soo qaaday sida ay dhacdo taasi ugu dhowba ay ugu dhacday dalka Japan sanadu markay ahayd 2009 bisha June taasoo ku soo da'ay 10,000 oo kalluun ah iyo raaxyo yaryar magaalo lagu magacaabo Anshigawa nambar 8 baraf shabaha kalarka xabxabka ama qaraha waxaa jiro dhowr goobood oo ka tirsan buuraha ku yaala gobolka Colorado ee dalka Mareykanka ayaa guriyihii waxaa qariyay baraf oo kalarkiisu u eg yahay xabxabka nambar 7 roobka looda soo da'ay sanadu markay ahayd 1980 ayaa mar uu maray markab ay leeyihiin Japan xuduudda badda Russia markabkii ayaa waxa uu bilaabay inuu hal mar si kedis ah u gudoomo taasoo sababtay loo xagga sare ugu soo daadatay isbuuc kadib ayaa Russia waxa ay cadeysay diyaarad siday loo taasi oo ka soo daateen 20 loo ah sababtuna ay ahayd miisaanka oo ka tambatay diyaaradda nambar 6 roobabka lacagta 2007 ayaa goob ka mid ah dalka Jarmalka waxa hal mar ku soo da'ay boqolaal iyo kumanaan lacag ah oo waraaq ah baaritaan ay xukuumadda ku samaysay sababta ka dambaysa ayaa waxa ay ku qaadatay toddobaadyo badan waa ay fahmi waayeen sababta ka dambaysa lacagtaasi soo daadatay amba qofka soo daadiyay lacagtaasi nambar 5 roobka kalaryada sanadu markay ahayd 2006 ayaa waxa ka dhacday dalka Hindiya dhacdo cajiib ah kadib markuu bilowday roobka inuu ku soo da'o kalaryo kala duwan tuulooyin qaar ah si aadna u da'o roobka aad moodo in la soo nashqadeeyay balse dhacdadaasi baaritaan kasta oo la sameeyay waa la gungaari kari waayay sababta ka dambaysa arinkaasi nambar 4 roobka caarooyinka sanadu markay ahayd 2007 ayaa dalka Argentina waxa ka dhacay dhacdo aad iyo aad cajiib u noqotay kadib markii xagga sare ka soo da'een caarooyin ku soo da'een tuulo ka mid ah Argentina caarooyinka ayaa waxa ay gaareen ilaa 10 sentimitir daqiiqado kadibna waxa ay qabsadeen oo qariyeen dhulkii oo dhan iyadoo loo waayay haba yaraatee fasiraad oo cilmiyeysan nambar 3 roobka beeka ama ukunta jasiiradda Hawaii ayaa waxa ku soo daatay tiro 1800 oo beet ah oo madmadow taasi oo sababta ka dambaysa la fahmi waayay nambar 2 hilibka soo da'ay sanadu markay ahayd 1967 dalka Mareykanka aaq lagu magacaabo Colombo Sambrakista ayaa xagga sare waxa ka soo daatay hilibyo ido iyo noocyo kala duwan dadka qaar ayaa waxa ay aamineen in xagga sare ka soo matageen haado sida haada yuulida oo kale balse daqiiqado kadib waxaa la arkay boqolaal iyo kumanaan hilibyo googo ah oo kor ka soo daadanaya balse markii ay dawladda baaritaan ay samaysay wax tafsiir ah waa u weyday iyadoo hawada sare nadiif iska ahayd nambar 1 roobka dhiiga ah oo soo da'ay Colombia sanadu markay ahayd 2008 tuulada lagu magacaabo Toshoko waxaa hal mar ku bilowday oo ku soo da'ay roob dhiig ah kaasi oo qariyay wadooyinka culimada qaar ayaa dhiigaasi qaaday oo baaritaan ku sameeyay kadib waxay ogaadeen marka ay baareen inuu yahay dhiiga bini'aadanka dadkana aad ayay ugu argagaxeen waxayna yiraahdeen waa digniin ka timaaday xagga Ilaah waad ku maasan tahay daawashada muuqaalkeena ha ka iloobin inaad saato subscribe gambaleelkana taabo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya muuqaalka xiga